الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدة صدق سنة كذب إله وانا كاني إله مع معصر. أكلنا دي وصل الله بني. وحنا ما هذا سجارة ولا مدحوينها جمهورية جيبوتي. مدن إسماعيل عمر جيله. وإلا يري وإن الدفاعدان. مركز وما سيهاي. تواود شغلنا مقال إن شاء الله تعالى والله شكل سمدوا الله جل وعلا ستي ما نسعتها. وعدونا هاي وفرحتنا هاي أنا قدوم وفرحتنا هاي فرحت كلية معها وضلنا أحمد وهذا قبل بسيم مدحوين إسماعيل عمر قيل الله ينود هاي ولا الغالية شلون شوك بانولين هاي إمريكا عفاتك الله دايو إلهي إنما هذا نوعينا الحمد لله رب العالمين نكاني مقدسه dalkeegii la keenay walaalaha noo keenay imkana waxaanu ka nimid dalkeenii kale waxa iyakiin muuqata day qurux badan iyo nimco badan iyo waad wada hilaacisana waa iftiimaysaan Soomaaliland kama maqnayna hameena kama maqnayn waa kula joogay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya kulan kula qaatay madaxda ugu sareysa dawladda Soomaaliya oo kamid yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo labada madaxweyne ayaa wada hadalladooda diiradda ku saaray danaha ay labada dal wadaagaan gaar ahaan xoojinta iskaashiga wada shaqaynta labada dawladood madaxweyne farmaajo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay booqashada madaxweynaha Djibouti wafdigiisa waxaana uu xusay in maatankooda ay ka turjumayso xiriirka walaaltinimo ee labada dal ka dhaxeeya waa maalin taariikhi ah oo xaqiiqatan ka turjumaysa xiriirka labada dal iyo labada dad oo waalaha ah xiriirkaas taariikhiga ah aan leenahay iyo xiriirka gaarka aan leenahay waxa weeye xiriir bulsho xiriir dad iyo dad ah maxaan ku raahdaa xiriir amni inaan xoojinno iskaashiga haddii noqoto dhanka dhaqaalaha iyo wax wada qabsiga xaqiiqatanna waxaan iloobi karna ma aha inta Djibouti iyo hogaankaaga uu u taray dalkan insha Allah waxaan rajeynayaa in iskaashigaas aan sheegay oo dhinac walba taabanaya waa hadalkeena maanta iyo biri inay noqdaan wax miro dhala oo wax weyn ay ka soo baxaan dhan kale madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo isna ka hadlay kulanka ayaa sheegay in dadweynaha Soomaaliyeed iyo waliba shacabka Djibouti ay jecel yihiin inay wadaagaan dib iyo dheefba isagoona sheegay in Soomaaliya iyo Djibouti ay yihiin walaalo isku heshada dadweynaheenu waxa uu jecel yahay inaan iskaashiga aan sii biirino waxa uu jecel yahay inaan wadaagno dib iyo dheefba waxa uu jecel yahay inaan isku duubnaano anaguna waxaan fulinaynaa waxa uu dadweynaheenu leeyahay waxa aan jecelnahay in aan aragno yani Soomaaliya oo qeyrkeed inta ay daahday in ka badan inay qeyrkeed dhaafto in ay soo ceshato sharafteedii iyo karaamadeedii iyo raganimadeedii in ay annagu waxaan ka dhiganaynaa wehel baan ka dhiganaynaa Soomaaliya wehel bay noo tihiin annaguna wehel baanayna si kasta wafdiga madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo boqosho laba maalin qaadan doonta ku joogi doona magaalada Muqdisho ayaa la filayaa in kulamo wada tashi la yeelan doonaan dhigooda Soomaaliya si ay uga wada xaajoodaan adkeynta iyo sare u qaadista wada shaqaynta ka dhaxaysa labada dhinac iyadoo sidoo kale la filayo in madaxweynaha Djibouti uu xarig ka jari doono dhismaha cusub ee safaaradda Djibouti ee laga hirgeliyay magaalada Muqdisho Cabdi Fataax Macalin Nuur Soomaali Cable Muqdisho labada dal gacmaha ku sita ayaa waxa ay garoonka gudihiisa uu ku soo diyaariyay maamulka gobolka Banaadir kuwa oo loogu talagalay in ay wafuudda ka imaanaysa dalka Djibouti ku soo dhaweeyaan farxad iyo reereyn madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa soo gaaraya daqiiqada kadib garoonka Muqdisho wali ma aysan soo caga dhigan diyaaradiisa day madaxweynaha waxaana wali lagu jira diyaar garowga
heerkeedu sarreeyo oo soo bilaabatay ilaa xalay magaalada muqdisho laga dareemayey waddooyinka muqdisho guud ahaan waxaa ku dhegan labada calan ee labada dawladood ee Soomaaliya iyo Djibouti sida daawadayaal aad la wada socoteenba bilooyinka ugu dambeeyey waxaa socday diyaar garow ballaaran oo ay dalalka geeska Afrika u galayaan iskaashi iyo wax wada qabsi Soomaaliya iyo Djiboutina waxay ka mid yihiin dalalkaasi geeska Afrika ee ka tashanaya aayaha mustaqbalka iskaashiga dhaqaalaha cilaaqaadka ganacsiga iyo waxa la xiriira madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle safaaradda Djibouti wufuud ka socota ayaa iyaduna garoonka ku sugan oo soo dhaweynta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ugu jirto sidii madaxweynaha u soo dhaweyn lahayd ay ayagana kala qayb galaya daqiiqadaha soo aadan ayay soo caga dhiganaysaa diyaaradda sida madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaad si toos ah nooga daawanaysaan waxaad sidoo kale nagala socotaan telefishinka RT ka yimaada dalka Djibouti laga daawado oo asagana aad si toos ah nooga dheehanaysaan garoonka Muqdisho diyaar garow heerkiisu aad u sarreeyo ayaa ka muuqanaya sidaad aragtaanba astaamaha labada dal dad ku labisan ayaa garoonka jooga sidoo kaleeto labada madaxweyne ayay gacmaha ku sitaan dadweynaha kala duwan ee soo dhaweynta ayagu u diyaarsan ee ku sugan garoonka gudihiisa kooxda band musicada oo ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ka socda labada baab oo ku sugan yihiin taasoo muujinaysa sida loogu diyaar garoobay soo dhaweynta heerkeedu sarreeyo ee madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxaa guud ahaan ku sugan garoonka madaxda maamulka gobolka Banaadir oo ugu horeeyo gudoomiye Yarisow ku-xigeenadiisa qaar ka tirsan gudoomiyaasha degmooyinka golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya xubno ka socda golaha baarlamaanka sidoo kaleeto qaybaha bulshada dadweyne aad u fara badan oo ayagu loo carbiyey diyaar garowga madaxda kala duwan sida tan maanta imanaysa oo kaleeto ah ayaa ku sugan garoonka kuwaas oo ayagu astaamaha sidaan idiin sheegayba labada dal sita oo ayagu u diyaarsan soo dhaweynta wafdiga ka imaanaya dalka Djibouti gaar ahaan wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo ayagu daqiiqadaha nagu soo foodale soo gaaraya magaalada Muqdisho haddaba sida aad aragtaan diyaar garowgaas waxaa qayb ka iyadana bahda warbaahinta oo iyaduna u diyaarsan sidii ay bulshada ula wadaagi lahayd sida loo soo dhaweeyo madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo aad moodayso in ay ka duwan tahay qaabkan marka loo eego guud ahaan magaalada Muqdisho iyo garoonka qaabka loogu diyaar garoobay mid ka duwan diyaar garoowyadii ama qaababkii loo soo dhaweyn jiray madaxda taasina waa mid muujinaysa walaaltinimada soo jireenka ah ee labada shacab ka dhaxaysa waa shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka dalka Djibouti oo ayna walaalaha nahay marka taas astaamo muujinaya walaaltinimada soo jireenka ah iskaashiga cilaaqaadka wax wada qabsiga dhaqanka diinta iyo mid waxa la halmaala ayaa waxyaabo u muuqda garoonka gudihiisa laga dareemaya oo shucuubta Soomaaliyeed waa mid guud ahaan ka duwan qaabka ay ku duwan tahay si aan bal Djibouti wax uga ogaano waxaa sidaan idiin sheegayba qayb ka ah tabinteenna maanta tabintayada maanta RT oo asagu dalka Djibouti laga leeyahay kaas oo asaguna qayb ka ah tabinta tooska ah warbaahinta dawladda gaar ahaan SNTV la wadaagaya inuu asaguna gaarsiiyo shacabka reer Djibouti marka hore soo dhawow aad iyo aad baad tahay warooyin iyo mudanayaal waa sidaa uu sheegay waan isku xidhannahay labadayna waan isku xidhannahay waxaa barnaamijkaasi tooska ah ee ku saabsan madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle oo sida uu ku imanayo dalkan Soomaaliya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle markii u horeysay ee uu ku yimaado dalkan ma aha waxa uu leeyahay waqti nin madaxa ah ama nin madaxweyne ah ama nin wasiir ah ama nin kale oo wadifada iba ku soo dhiiban inuu yimaado dalkan Soomaaliya waqtigaas ayuu yimiday dalkan Jamhuuriyadda Djibouti dalkan Soomaaliya
madaxweynaha jamhuuriyaddu uu halkaasi uu tilmaamay in ummadda Soomaaliyeed ay tahay ummad walaalaha ummadda jamhuuriyadda Jabuuti iyo ummadda Soomaaliya kolka booqashadani waa booqasho la xidhiidha in wadahadal la yeesho madaxda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyadoo waliba xariga laga jiri doono safaarad cusub oo Jabuuti ay ku yeelanayso magaaladan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho imika halkan aniga soo tabanayna barnaamijka tooska waa dhabaha diyaaradaha cadde ee magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda ay weeliyaan wafdi ballaaran uu weeliyo wafdigaasi oo ay ka mid yihiin 4 wasiir 9 xildhibaan iyo waliba saraakiil rayid iyo military isku jirta waxa ka mid ah waliba fanaaniin sida fanaanka caanka ah ee dalkan Jabuuti aadka looga yaqaano abwaanka aadan faarax samatar waxa iman doono waliba kale iyadoo uu iman doono fanaankii Soomaaliyeed ee dalkan Soomaaliya u dhashay garan Muqdisho xasan aadan samatar waxa kale oo iman doona fanaankii gobolkii caanka ah ee adduunka oo dhan aad looga bartay waxa kolka halkan ay tahay maanta caasimad ay iskugu imanayaan ummadda jamhuuriyadda Jabuuti iyo ummadda Soomaaliyeed waa wafdi aad u ballaaran halkaas ayaa ka muuqata in boqoshada ay tahay mid aad iyo aad u qiimo badan maxamed daahirow haddii aan ku weydiiyo maxay uga dhigan tahay labada shacab ee walaalaha ah ee Jabuuti iyo Soomaaliya safarkan maanta madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle uu ku imanayo Muqdisho iyo sida aad aragtay heerkeedu sareeyay loogu diyaar garoobay sidan loogu diyaar garoobay iyo booqashadu qiimaha ay leedahay bay leegtahay ummadda Soomaaliyeed madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu uga dhigan yahay sida aan waraysiga ku dhex marnay sida mar walba ay tilmaamaan inuu yahay madaxweynaha labaad ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waayo way yiraahdeen ummadda Soomaaliyeed waxay xasuusan yihiin shirkii carta ee ballaadhnaa ummadda Soomaaliyeed waxay ahayd waqti ummadda Soomaaliyeed laga quustay oo loo arkay Soomaaliya in ay dib u soo kici karin oo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle bishii Sebtembar sanadkii 2000 markii khudbadda ka jeediyay qaramada midoobay adduunka oo dhan way la yaabeen waxa lagu yiri ma aha mid lagu dhiiran karo in Soomaaliya la hagaajin karayo